Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada casharkeena qeybtiisa shanaad. Casharku wuxuu inoo joogay fa-idaa qiila haddii lagu yiraahdo mal usuulu thalath, waa maxay asaladii saddexda ahaa allatii asaladaasoo yajibu ay ku waajib tahay cala al insaanka macrifatuhaa inuu barto. Faqul waxaad tiraahdaa macrifatuhaa inuu garto. Faqul waxaad tiraahdaa macrifatul cabdi waa inuu adoonku garto rabbahu rabbigiisa, wa diinahu iyo diintiisa, iyo wa nabiyahu nabigiisa muxammadin nabi muxammed sala allahu calayhi wasalam. fa-idaa qiila haddii lagu yiraahdo man rabbuka, waa ayo rabbiga, faqul waxaad ku jawaabaysaa ama aad dhahaysaa rabbi allah, rabbigay waa alle, alladii kaasoo rabbaani barbaariyey wa rabba barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta dhammaantood binicamihi nicmadiisa ku barbaariyey, wahuwa isagu macbuudii waa ka aan caabudo, ilaahay waa kan aan caabudo, laysa lii iima sugnaanin macbuudun mid aan caabudo oo siwaahu isaga ka soo haray. wa kullu wax kastoo maa siwa allaha ilaahay ka soo harayna caalamun waa caalam. wa ana aniguna, sheekha ayaa iska hadlay kitaabka la wuxuu leeyahay, wa ana aniguna waaxidun mid baan ahay min daalika alcaalam. wa ana aniguna waaxidun mid baan ahay min daalika alcaalam, caalamkaas ka mid ah. fa-idaa qiila haddii lagu yiraahdo bima carafta, maxaad ku garatay rabbaka rabbigaa, faqul waxaad tiraahdaa biaayaatihi aayaadkiisaan ku gartay, iyo wa makhluuqaatihi. faqul waxaad tiraahdaa biaayaatihi aayaadkiisaan ku gartay, iyo wa makhluuqaatihi waxyaabaha uu abuuray. wa min aayaatihi calaamadihiisana waxaa ka mid ah alleylu habeenka, wannahaaru iyo maalinta, washamsu iyo qoraxda, washamsu qoraxda, iyo walqamaru dayaxa. wa min makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa kaleetana waxaa ka mid ah assamaawaatu sabcu, samooyinkaas toddobada ah, iyo wal arduuna sabcu, dholalka toddobada ah, waman fiihinna iyo waxaa ku dhex jira, iyo wamaa baynahumaa waxaa u dhexeeya. wadaliilu qowluhu tacaala, hadalkii ilaahay baan u daliila, wamin aayaatihi alleylu, wamin aayaatihi calaamadihiisa waxaa ka mid ah alleylu habeenka, wannahaaru iyo maalinta, washamsu iyo qoraxda, iyo walqamaru cadceeda, washamsu qoraxda, iyo walqamaru dayaxa. laa tasjudu ha u sujuudina lishamsi qoraxda, iyo walaa lilqamari dayaxa toona, wasjuduu u sujuuda lilaahi ilaahay, alladii kaasoo khalaqa abuuray hunna iyaga, dayaxa iyo qoraxda ilaahaygii abuuray u sujuuda, in kuntum haddaad tihiin iyaahu qaar isaga keligii tacbuduuna caabudaya. wa qowluhu tacaalaa, hadalkii ilaahay baan u daliila, ina rabbakum rabbigiinu allahu waa ilaahay, alladii kaasoo khalaqa abuuray assamaawaatu samooyinka, iyo wal arda dhulka, fii 6 ayaamin 6 maalmood ku abuuray, huma stawaa kadibna ku ekaaday cala alcarshi carshigiisa, yuqshii wuxuu ku daboolaa alleyla habeenka, annahaara maalinta, yadlubuhu isaga oo dalbaya xafiisan si degdeg ah, washamsa qoraxda, iyo walqamara dayaxa, iyo wanujuuma xidigaha musakharaatin waxay ku sahlan yihiin biamrihi amarkiisa, alaa lahu lkhalqu abuurku isagoo u sugnaaday, iyo walamru amarka, tabaaraka allaahu ilaahay ba xumaan ka hufnaaday, rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaaday. warabbu rabbiguna uu ku tacriifinayaa wuxuu leeyahay, warabbu rabbiguna huwa almacbuudu waa ka la caabudo. wadaliilu qowluhu huwa almacbuudu waa ka la caabudo. wadaliilu qowluhu tacaala, hadalkii ilaahay baa u daliila, yaa ayuha nnaasu dadow, ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina, alladii kaasoo khalaqakum idin abuuray, waaladiina
والذين من قبلكم يكوي إذنك هري لعلكم تتقون وعبستان الذي واكي جعل إذنك غيالي لكم إذنك الأرض دولك فراشا فراس والسماء سمادنا بناء اسمه وأنزل وحو إذنك كسد من السماء سماد حقيدا ماء بيو فأخرج به waxaad ku soo saarateen min athamaraati risqan lakum si aad u quudataan falaa tajcaluu haka yeelina lilaahi ilaahay andaadan qaaraad la barbar dhigtaan haka yeelina wa antum idinkoo taclamuuna og qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi alkhaaliqu لهذه الأشياء وكان أبوري وحيابهن أودن أن سوشيغني وهو إساقو المستحق وكان متيستي للعبادة وأنواع العبادة نوعية عبادة وحاكمة التي تاسو أمر الله إلهي أمري بها إيدا الإسلام إسلام كيبا كميدا والإيمان إيمان كيبا كميدا والإحسان إحسان كي انت سينكسو جبيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.